السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawada ama dhagayste waan ku soo dhaweynayaa gacmo furan, qalbi furan iyo niyad sami. Waxaan kula wadaagi doonaa qiso jeceyl oo dhab ah oo aan xilligaa aniga aan goobjoog ka ahaa. Waxayna ku dhacday wiil aniga asxaabtayda ka ahaa. Rabbi waxaan uga baryayaa in jannatul firdawsa uu ka waraabiyo. Xilligaasi waxa uu ku sugan yahay ilaah unbaa garan karee. Haddaba haddii aan sheekada ama qisada haddaan hore u sii guda galo, waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. Ma jecli in aan wiilka magaciisa aan halkan ku xiso, balse waxay u dhacday sida tan. Wiilka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu gabar xiriir jacayl oo dhab ah uu la wadaago. Hase ahaatee, jacaylku waa iska mixno badan yahay. Marba qof buu dhankiisa u batay. Waxaa dhacday wiilkii waxay muddo gabadhii wada socdaanba, maalinba maalinta ka dambeysa in uu jacaylkii xad dhaaf noqdo. Waxay sidaa ahaataba, maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa isoo gaartay wiilkii aniga saaxiibkayga ahaa in uu qol isku xiro, kadibna uu sunta dooliga cabo. Jacayl uu gabadha jecel yahay awgeed. Nasiib wanaag, waxaa dhacday in la ogaado, kadibna qolkii sidii loogu jibiyo oo intaysan suntii jirkiisa ku faafin wiilkii laga gaaro. Nasiib wanaag, wiilkii sidii ayaa lagu badbaadiyey. Waxay sidaa ahaataba, isaga wuxuu jacaylkii sidaa u socdaba, isla muddo ama isla maalmo kadib haddana waxaa dhacday isla sidii inuu wiilkii sameeyo. Nasiib wanaag, isla maalintii labaadna sidoo kaleeto waa laga gargaaray oo sidii baa haddana lagu badbaadiyey. Balse maxaa dhici doona tookadii saddexaad? Waxay ahayd saacaddu haddii aan isdul taago abaaro 5 ama 11 duhurnimo iyo qadaro ayaa waxaa dhacday isla maalintii saddexaad inuu isla sidii sameeyo oo qol inuu isku soo xiro, kadibna suntii dooliga uu sidii ku isticmaalo. Hase ahaatee, Ilaaha u naxariisto, tookadii saddexaad maysan ka agdhoweyn sidii ayuu ku geeriyooday. Rabbi waxaan uga baryayaa inuu jannatul firdawsa ku abaalmariyo. Waxaan kaa codsanayaa, haddii ay qisadani ku soo gaarto, si ay ugu tusaale qaataan dad qaar, in aad sheer garayso. Waad ku mahadsan tahay dhagaysigaaga. Waxaan kula wadaagi doonaa qisooyin kaleeto oo xaqiiq ku salaysan hadduu Eebba ka raali noqdo. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad like ii saarto, share, kadibna aad subscribe ii saarto. Waa mahadsan, waa ii dhiirigelin. Mahadsanidin dhammaan asxaabtayda, waan idin jeclahay. sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu
waraxmatullaahi wabarakaatu.